اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وبعد، maanta oo maalin axad ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha saddexaad 2022, waafaqsanna 10 Shacbaan 1443. waxaa inoo socday tartankii sana dusyeedka ahaa 2021 2022. maantana waxaa tartamaya labada fasal ee kale ah fasalka 8aad B iyo fasalka 10aad Form 2. haddaan ku horeeyo fasalka 8aad B, waxaa u tartamaya ardayda kale ah Bishaaro Khaliif Xirsi, Ifraax Jamaal Cabdulaahi, Jihaan Jamaal Cabdulaahi, Juweeriya Daa'uud Maxamed, Maa'ido Cabdikaafi Cumar, Maariya Maxamed Muuse, Maryama Maxamed Muuse. intaas waxay ahaayeen fasalka 8aad ardada u tartamaysa. fasalka dhigooda fasalka 10aad Form 2 waxaa u tartamaya iyagana Cabdikaafi Xasan Axmed, Cabdirasaaq Cabdikariin Cabdisamad, Cabdulaahi Daahir Cabdi, Faadumo Jamaal Cabdulaahi, Farxaan Cabdirashiid Cali, Maryama Maxamed Xasan, Maxamuud Xuseen Maxamed. insha Allah waxaan u gudbaa qaybihii lambarka ku xusnaa qurutuurka. laba arday soo kala dirsada labada fasal si lambarka qurutuurka ay u qabtaan. labada lambar la qabsanayna waxaa waaye waa 30 31. وحنانكم جودوا يجود الله بالإنعام، جودوا يجود الله بالإنعام. magacayga maxamed xuseen maxamed ku soo tartamayaasha fasalka 10aad waxaa qabsada 31. يوائمني على الأيام قد وأمى المختار بين بسم الله. أنا مقعي ويا بشارة خليف فرصة قصة فصل كستيداد بي عاقب سنين نمبر قصودا. طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب. بسم الله. lambarka qurutuurka loo asteeyey waa lambarkaas u jeedaan 30. waxaana lagu bilaabaa su-aasha fasalka 8aad B. insha Allah waxaan u gudbaynaa qaybihii kale lambarada maadooyinka ku xusnaayeen fasalka 8aad B. qalin waraaq diyaarsada insha Allah. 360 364 372 374 375 379 381 384 390. fasalka 10aad qalin waraaq diyaarsada insha Allah. 405 407 410 414 416 420 424 426 428 430 433 435. waxaan filaya inaad qorateen. fasalka 8aad B arday soo dirsada lamarka nii qabta insha Allah. متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام. تحبق الضاطيشن. fasalka 8aad nambarkay qabsadeen waxaa ku xusan maadada xisaabta. su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan: labada dhinac ee saddexagal quman haddii ay yihiin 6 sentimitir iyo 8 sentimitir, waxa aad raadisaa dhererka shakaalka. mar labaad aan ku celiyo, su-aashu waa su-aal xisaaba waxayna u dhacaysaa sida tan: labada dhinac ee saddexagal quman haddii ay yihiin 6 sentimitir iyo 8 sentimitir, waxaad raadisaa dhererka shakaalka. mar saddexaad aan ku celiyo, su-aashu waa su-aal xisaaba waxayna u dhacaysaa sida tan: labada dhinac ee saddexagal quman haddii ay yihiin 6 sentimitir iyo 8 sentimitir
haddaba waxaad raadisaa dhererka shakaalka. waxaan filayaa inaad fahanteen oo aad ka warceli doontaan insha allah. taariikh abwaan hore tirsha waxay tilmaamaysay taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseene intu kaloo labaadoo jirtana waxay tibaaxaysay tobankii nin ee abbahoo talaada weyn siiyey tabtu wax ugu sheegay ee murtida ugu tayagooday midnimadu wanaagga ay tartiyo toosta kala yaaco tijaabada siduu ugu sharxiyo qodobadu taabtay wanaaggu tashigu leeyahay hina tusaysaaye anna waxaan tusaalooyinka taxan u soo qaatay tixyaroo wax sheegiyo inaan waana tabiyaye war tawfiiq israacdiyo midnima lagu tanadaye walaalihii istaageersada guul tilmaansadaye kuwiise kala tasooba waqo tamar ma yeeshaane nimbatiisa mooye hadduu wadaajirkii tuuro tafaraaruqooda bato taran ma gaadhaane tira magac u yaalay noqdaanaan tayalahayne cadaawana iskama tiiriyaan soo tilmaansadaye tafantoofna kama baqsadaan waana say tahay tartanka adduunyada socdeen niniba meel tiigsan tallaabada si aad ula heshaan dunidan tooraysay dadkaygo wixii kala tagiyo toos xundhaalinaya ka toosmaystahoo taxadaro meel iskaga tuura istixgeliya oo wada tashada oo tub wada qaada hadba kii tabaalaysanee tamar yar taageera jahligiyo saboolkana tirtira tacabna soo saarta ubadkana tacliintiyo cilmiga toosu wadageeya istabaabushayn midnimo idinka oo taagay oo wada jirtaam yeelayoo tiirka u adkeeyey bismillaah magacii waa maydacad jaafkana socod tartamayaasha fasalka 8aad bii su-aasha jawaabteeda haddaa isku day waa dhirirka shakaalka waa 10 sentimitir. fasalka 8aad su-aashii la weydiiyey ahayd su-aal xisaab oo u dhacaysay laba dhinac ee saddex xagal quman haddii ay yihiin 6 sentimitir iyo 8 sentimitir waxaad raadisaa dhirirka shakaalka. haddaba jawaabta ka bixiyeen waa mid sax ah. tobanaad arday soo dirsada markani qabto cabdulaahi cabdi fasalka nambarka 407 fasalka tobanaad nambarka qabsada waxaa ku xusan maadada luqatu alcarabiya su-aashan waxaa u dhacdaa sida tan iqra shicran naqaa'ida kullahu. mar labaadan ku celiyo fasalka tobanaad nambarka qabsada waxaa ku xusan maadada luqatu alcarabiya su-aashan waxaa u dhacdaa sida tan iqra shicran naqaa'idi kullah. mar saddexaadan ku celiyo fasalka tobanaad nambarka qabsada waxaa ku xusan maadada luqatu alcarabiya su-aashan waxaa u dhacdaa sida tan iqra shicran naqaa'id kullahu. waxaan filaya inaad fahanteen kana fali doontaan biidnillah. taariikh abwaan hore tirsha waxay tilmaamaysay taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseene tartanka adduunyada socdeen niniba meel tiigsan tallaabada si aad ula heshaan dunidan tooraysay dadkaygo wixii kala tagiyo toos xundhaalinaya ka toosmaystahoo taxadaro meel iskaga tuura istixgeliya oo wada tashada oo tub wada qaada jahligiyo saboolkana tirtira tacabna soo saarta ubadkana tacliintiyo cilmiga toosu wadageeya istabaabushayn midnimo idinka oo taagay
oo wada jirtaam yeelayoo tiirka u adkeeyey ku tallama inaad tiigsataan horumar taariikh leh ku tashada inaad tiigsataan horumar taariikh leh tobanaad jawaabta bismillaah anigoo magacayga ku bilaabaya faadumo jamaal cabdullaahi ku saabsan tobanaad haddii aad isku dayo su-aashan jawaabteyda إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعامه أعز وأطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاش عواب الفوارس نهشل لا يحتبي بفناء بيتك مثله أبدا إذا يعد الفعال الأفضل ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل وإذ بضخت فراية يمشي بها سفيان أو عدس الفعال وجندل الأكثرون إذا يعد حصاهم والأكرمون إذا يعد أول تزن الجبال أحلامنا تزن الجبال رزانة وقتالنا جن إذا ما نجهل فادفع بكفلك إذا أردت بناءنا سهلان ذا الهضاب هل يتحلحل وإذا بذخت فرايتي يمشي بها سفيان أو العدس الفعال وجندل الأكثرون إذا يعد حصاهم والأكرمون إذا يعد أول أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا الجن إذا ما نجهل فادفع بكفلك إذا أردت بناءنا سهلان ذا الهضاب هل يتحلحل فادفع بكفك إذا أردت بناءنا سهلان ذا الهضاب هل يتحلحل فصلك التبنات سؤال شويدية اللغة العربية اقرأ شعر النقائد كله جوابتك بحيه ومسحة أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد الله سبحانه وتعالى ما تسكله ساكي صبح نيمو tartankii inoo bilaawday qaybtiisii hore inoo dhameeyey haddaan sheegno dhibcaha qaybihii hore lakala keensaday fasalka 8B haddaan ku horeeyo waxaa la sida caadatan waxaa la isweydiiyaa qaybaha hore 4 su'aal afarta su'aal la weydiiyey fasalka 8B si sax ay wada jawaabeen dhibcaha waxay haystaan 8 dhibcood halkaas fasalka dhigooda fasalka tobanaad ayagana 4 su'aal la weydiiyey afartii la weydiiyey si sax ay wada jawaabeen ayagana 8 dhibcood halkaas ku haystaan tartankana waa faano la farkama qodno insha Allah qaybihii kale u sii gudbeynaa dhaxtaalka qaybihii ugu horeeyay oo mataqaanaa codadka iyo taageerayaasha fasalada si loo kala taageera dhageysan doonaa waana daawanayna insha Allah أبني بلدتي شارك أخاك الأجر في إتمامي أمسك يدي بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميعي وما يدعك كاف عمرك نسعد ترتمياش بسرك دادات بي هل كان وحاكول ترتمينا ولا لين بسرك التونات هدينا وقوليستان ووان بليانينا هداك قوليسن وستدار من دادات بي قولوا عن إن شاء الله اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به بسم الله magacaygu waa ibraahim cabdi cilmi kana socdo fasalka tobanaad waxaan halkaa ku tartamayaa fasalkiina iyo fasalka 8B waxaan u soo baxnay guul iyo gool daro insha Allah waxaan rajeynaynaa guul سينير لي إظلامي أنا مولع بسم الله أنا وعد مالك خليف جامع السعودية فصلك 3 أفراد ما طالكان وعا كترتمها فصلك الله فصلك التبنات يسديات بي halkan waxa u taagnahay fasalkii soo bixinaa ku wadno anakoo 3 أفراد waxa u codeynaa toonad guul wacan أنا طالب
وبطالب أمضي فمن بسم الله أنا معي إخلاص حمد جمعان كنا سعد فصل كورس waxaa maanta lagu tartamay fasalada kala ah 10aad iyo 8aad bi anagoo isku duwan cod kan seena 8aad bi gool wacan فاسلك طريق المصطفى متمثلا بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومجعي هي آمنة محمود شيخ ميرس waxaa ku socda fasalka shanaad meesha waxaa tartami doona fasalka 8 B iyo fasalka 10aad waxaa codkayga siinaynaa inaga waa isku duuban fasalka 8 B gool wacan دراستي وأعود خريجا لأرضي بسم الله أنا مجعي محمد فارع محمد oo ka socda fasalka lixaad halkaan maanta waxaa ku tartamaya fasalka 10aad iyo 8aad B anagoo isku duwan codkan waxaa siinaynaa fasalka 10aad guul wacan تمضي به نحو العلا أقدامي بسم الله أنا وأمير عمر محمد أو كسر فصل التطبيقات أحد ترتمى فصل التمنات يستهد بي طبعا نقل خلق نوبذ إله أجات أنا وأسكت واحد من سنة فصل التمنات كله أنا مولع بالعلم لكن عاقني بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومجعي محمد دقوح يوسف كان فصل جديد halkan waxaa ku tartamaya fasalka 8 B iyo fasalka 10aad anagoo isku duwan waxa codeynaa 8 B gulac أنا طالب بسم الله أنا مجعي نسرع عبدي أو كسر فصل السجالات ما أنت هلكم waxaa ku tartamaya fasalka 8 B iyo 10aad anagoo isku duwan waxaa cod ugu shubaynaa fasalka 10aad gulac بين أنصار بخير وآمين فاسلك طريق بسم الله أنا ميعي عاش دار محمد كنا سعودة فصل كفوم 3 waxaa ku tartamayo 10aad iyo 8aad B anagoo isku duuban codkeena waxaa siinaynaa 10aad guul wacan إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي بسم الله الرحمن الرحيم مجعيق وأمام عمر محمد كسعة فصل كفوم 4 halkan waxaa ku tartamaya 8aad B iyo فوم 2 anagoo isku duwan waxaa codeynayna فوم 2 guul wacan الأحلام اشتقت للفجر الجميل إن شاء الله قيبين كلا أسي قدبينا فصل كالوغو بلا وساك أرضي صدر سنايو فصل كا 8 B أرضي صدر صدر لما كان يقف العلم نور والظلام تأخر فمن الذي سينير لي إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد الله سبحانه وتعالى ما تسكله ساكي ترتنكي نوبل أوضي قبل دي سي أن تاغنهي waxaan sheegi doonaa dhibcaha labada fasal ee kala keensadeen haddaan ku horeeyo fasalka 8aad B qaybta hore waxaa la weydiiyey 4 su'aal afartii la weydiiyey si sax ay wada jawaabeen dhibca waxay ku haystaan halkaas 8 dhibcood qaybta dambe waxaa la isweydiiyaa sida caadatan 3 su'aal 3 su'aal la weydiiyey 2 ka mid ay saxeen 1 ka mid way qaldeen halkaas dhibca waxay ku haystaan 4 dhibcood wadarta guud ee dhibcaha fasalka 8 B ay haystaan waa 12 dhibcood halka dhigooda fasalka 10aad ee la weydiiyey qaybta hore 4 su'aal afartii la weydiiyey si sax ay u jawaabeen qaybta dambe waxaa la weydiiyey 3 su'aal 3 su'aal la weydiiyey sidoo kale si sax ay u jawaabeen dhibco guud ahaan ay haystaan dhibcaha fasalka 10aad waxa waaye waa 14 dhibcood guushana saaka waxay raacdo loo hambalyeynaya fasalka 10aad guul wacan insha Allah haddaan u gudbo qaybihii kale ustaad abubakar ayaan ugu baraaruji doono qolooyinka tartamaya iyo fasalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربعة صوصات إن شاء الله وحاترتمي دونو فصلة كلا فصلك أفراد أو فاينل فديي يو فصلك تبنات أو مانت بديي تاريخنا وحيكو بيغانتهاي إلهي توانك بشي سدحات لوضكن لواتني لو أربعة صوصات إن شاء الله وحاترتمي دونو فصلك أفراد أو فاينل فديي يو فصلك تبنات taariikhdana waxay ku beegan tahay 16 bisha 3 2022 si fiican isku soo diyaariyay marka insha Allah waa final aad iyo aad u mahadsan yahay Abubakar insha Allah halkaas ayaynu eegyahay tartankii saaka noo bilowdo billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام. بالعلم سوف أعود أبني بلدتي، شارك أخاك الأجر في إتمامي. أمسك يدي كي تستقيم دراستي، وأعود خريجا لأرضي. اشتقت للقرطاس والأقلام، وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت للفجر الجميل، لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي.